الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، الله سبحانه وتعالى ayaan weydiisanaynaa inuu nawaafajiyo wixii samaha iyo khayrku ku jiro. kelimadan oo ku saabsan sidii horeyba loo sheegay qoyska muslimka ah, waxaan isleeyahay malaha mawduucan daaweyntiisa waxaa kaaga fiicnan lahaa culimada idinla nool ama idinla noolaatay hadda ka hor. sababtuna waxa weeye waxaa ka mida qawaacidda alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi baa la yidhaahdaa. shayga markaad xukumayso waa inaad sawir buuxa ka haysato wey, waa inaad si fiican u fahamsanta. haddii kale waxaa dhacaysa haddii aadan arrinta si fiican u fahamsanayn, dhinacyaheeda kala gedisanna aadan si fiican uga warhaynin, waxaa imaan kartaa ama dhici karta inaad xugum khalada saarto, ama sidii daawadeedu ay ku habboonayd si ka gedisan inaad u daaweyso. waxaa la yidhaahdaa tashkhiiska iyo cudurka marka hore in la qiimeeyo oo cudurka la ogaado ayaa ka horeysa daaweyntiisa. mujtamacaadkiinan markaa muslimka ah ee waddamada reer galbeedka yimid ee degay, xaasaska ku yeeshay, carruuraha ku leh, waxaa laga yaabaa cudurrada khaaska ee bulshooyinka haysta qoysaska ku nool waddamada reer galbeedka inay aada uga gedisan yihiin mashaakisha iyo cudurrada haysta qoysaska muslimka ee ku nool ama waddamada islaamka ama waddamadan ka nimid. siday dooniba ha ahaatee, mawduuca qoysku runtii waa mawduuc muhim ah. wixii ilaahay subxaana wa tacaala iga waafajiyo umbaan insha allahu tacaala ka odhan doonaa. waxaan allah weydiisanayaa subxaana wa tacaala inuu gafka iyo khaladka naga ilaaliyo, idinkana waktiga aad wax dhegaysanaysaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idin geliyo. marka labaadna waxa aad maqlaysaan dad wax ku qaato oo ku intifaaca inuu ilahay idinka dhigo subxana wa tacaala. walaalayaal, saan horeyba u sheegay, qoyska arrintiisu wakti hore iyo haddaba
وأرن مدن runtii in badan in la isdul taago waa arrin mudan in badan in laga hadlo waa arrin mudan in badan in laga sheekeeyo oo xal loo raadiyo oo cudurradeeda la daaweeyo oo si rasmi ah runtii waxa weeyaan wax looga qabto sababtuna waxa weeye qoysku wuxuu asaas u yahay ama gundhig u yahay bulshada iyo mujtamacuna waxay gundhig u tahay dawladda silsilad ishaysato way marka haddii qoysasku ay fiicnaadaan bulshadaas qoysas bay ka koobantay waa mujtamac xubnihiisa ay fiican yihiin ay fayow yihiin oo nadiif yihiin haddiise ay dhacdo inay ama qoyskii u burburo ama ma ahe macnaha waxa weeyaan maaragtay xubnihii kaleete ee qoyska ka hooseeya bulshadu nadaafadii la rabay iyo qaabkii la rabay laga waayo runtii way adag tahay mujtamacu inuu noqdo mujtamac sidii la rabay iyo dawrkii iyo kaalintii laga rabay qaato way adag waxaan jeclahay marka inaan mawduuca dhowr qaybood u qaybiyo qayb inaan darsigan maanta iyo muxaadaradan maanta aan ku qaadano insha allahu tacaala qaybaha dambena jaanis dambe biidn illahi tabaaraka wa tacala inaan la sugno ayaan jeclahay haddii aan la idmo waxaan ku bilaabayaa hadalkayga allah baa mahad iskale subxaana wa tacaala marka koobaad walaalayaal rabbigeen wuxuu ku mahadsan yahay marka koobaad kamaal iyo dhammaystirnaan iyo wax laysku ammaano isagaa iskale wixii isaga ka soo hadhay waa dhiman yahay ceeb buu leeyahay isaga ayaa wuxuu yahay midka dhammaystiran oo meella ayna dhimanaan ka soo gelin saa ilaahay mahad buu ku leeyahay waa ku ammaanaya subxaana wa tacaala salabaadee rabbi ku ammaanaya waxay tahay wax kasta oo laysku ammaano oo aynu haysanno isaga xaggiisa ka yimaadeen wamaa bikum min nicmatin famin allah uma idaa massakum adurru failayhi taj'aruun wax kastood haysataan oo nicmo ah xagga ilaahay bay ka timid markay dhibaata idin qabatana isagaad u dhawaaqataan oo xaggiisaad u carartaan rabbigeen subxaana wa tacaala marka waxaan nahay oo dhan isagaa inaga dhigay isagaa rabbi subxaana wa tacaala ina abuuray abuuristeennii ninna kala muusan tashanin adigana lagaama talagelinin waalidkaana lagalama tashanin cid ilaahay ku kaalmaysayna ma jirto subxaana wa tacaala allana subxaana wa tacaala xaq iyo waajib ugumaadan lahayn inuu ku abuuro rabbi isagaa ku abuuray subxana wa tacaala adoon jirin buu adduunyadan ku keenay markuu ina keenay rabbi subxaana wa tacaala xubnahan qiimaha badan iyo qaabkan quruxda badan inoo abuuray ayuu haddana alla subxaana wa tacaala wuxuu inoo diyaariyey noloshan aynu ku nool nahay waxa nolosheennu u baahan tahay oo dhan baa laynoo diyaariyey waxaa laynoo diyaariyey hoygii baa layna siiyey waxaa layna siiyey cuntadii baa layna siiyey waxaa layna siiyey cabitaankii baa layna siiyey waxaa layna siiyey intaa markii layna siiyey haddana shahwa ina qabatay oo shahwadii meeshaan ku gudan lahayn iyo nidaamkaan ku gudan lahayn baa laynoo habeeyey intaasoo dhan waxaa ka weyn allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo dejiyey nidaamkii noloshani ay ku hagaagi lahayd rasuul buu rabbi inoo soo diray malag buu xaggiisa ka soo diray rabbi subxaana wa tacaala nebi maxamed buu malagii u yimid fariintii ilaahay buu soo gaadhsiiyey innagana nebi maxamed baa inoo keenay fariintii rabbi subxaana wa tacaala waxaa laynoo keenay nolosheenna dastuurkii aan ku dhaqmi lahayn hadday qoys tahay hadday bulsho tahay hadday qaybaha dhaqaalaha tahay hadday dawlad tahay haddii ay mujtamac tahay haddii ay nooc akhlaaq tahay hadday cibaadaad iyo wax ilaahay loogu dhowaado tahay nolosheenna nooc kastoo ka mid a nidaamkii ay ku socon lahayd buu rabbi inoo soo dejiyey subxana wa tacala waa kitaabka qur-aanka iyo dhaxalkii nebigeenna sunnadii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadaasaa laynooga tegay waa nicmada ugu weyn ee rabbi bixiyey subxaana wa tacala sidaas daraaddeed
أيضا مركا لفيريو النعمة أيضا نعمة وحا كالو دو وحي نقولي وحير بي نقولي المها اللبسي ووحير قيسكو ووحير حولها اللبسي ووحير عاصماتكو ووحير عقلكو ووحير مركا لقرب لقو دين زي إلهي كسيه سبحانه وتعالى الإيمان ساس مراد النبي نوحي صلوات ربي والسلام عليه الله سبحانه وتعالى وحو السياء الدنيا ده ميت وشعلي هاي روح سنشعلين بقى لكن إيمانك الله مصيه روح وشعلي حدان هاي حدي الدنيا أي قيمة لها هاي الله سبحانه وتعالى تذكر نعبي هاي وكقد لها قال هذا موسى وحكتيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كسر مع رسول كان وحو ليه لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء حدي الدنيا إلهي أكتي أبلغنته كان عبد قرب كذا وحكان عبد قرب كذا لك شيء اللي تو أو قيمة قال أهي انت حدي الدنيا أبلغنته ألا أكتي قال هذا موسى كببي أكتيه لكن قال هذا وحا لسي إلهي أكتي سنة قيمة كلها هاي سأتراد المربقان ويقول سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كون قال هذا ونصين كون مسلم كان مؤمنين كان ونصين لوضعوا من اللومد دين بربي سبحانه وتعالى الله قال هذا وابن عيسى مرة بعدها نقول ما ذو زيدي الدنيا دان قيمة أكتس إلهي كرهي سبحانه وتعالى لكن شيء قيمها لما تقال شيء قيمها له روح قيمة لبالسية شيء إلهي أكتي قيمة قلك كأوى إيمانك إيا الدين في أخلاق له ساس فرادة إيمان إيا الدين إيا أخلاق إلهي وحسية أكتي سميت قيمة كله أكتي سميت قيمة كله ومجع كله ومنزلة إيا درجة كله إلهي الدين سيا سبحانه وتعالى رالي لكيه لكن الدنيا وحسية مد أردال الليسة وإلهي الشريطان كي سبت ديدا هي مد مؤمن وإله الرمي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى الله مركا ولا ليال نعمد قوين إنا كما هذنا أي واجب سهي قلبي أننا أي آت قوينا سواء نعمد الدين تي إيمان كون وحن كالوطن والقلا وداقا وحن كالوطن والقلا قبا هذا هو عنصه والعنصه يستحوله بواعنا هذا هو يستحوله وهو واحدان هذا هو عبسه ولا عبيسان كفر أحسنت حوله وحواعدان هذه حاف هي الشهوة ميل وجوتان معناه واحد كفر أحسنت حوله والشهوة وجوتان عرور الله هذا كفر أحسنت يعني واحد حوله وواطلان انت واحد كفر حوين ما لكن محل كفرها وحال كفرها الله سبحانه وتعالى دين إيمان إنه كسي أخلاق ولا سنون الله كسي سبحانه وتعالى مدة كقصة عنها كجانا قيمة بدنتها هاي خلقك انت ذكرك قيمة بدنتها وانا مدة إلهي سبحانه وتعالى أوسيي خلقي أوشعليه وآفية كرا يربو إلهي سبحانه وتعالى سيدا النبي قلنا كسوة صلوات ربي والسلام عليه ما ننت قيامنا مركا لساقه آدم بو إلهي ويريا سبحانه وتعالى آبهن مركات ربي وحكوله سبحانه وتعالى آدمو نار تعرور هذا آب الشيء انتي نار تلوغو تلقى للصوصر بالأرني مركز سوحوا يا ربي من كم ربي قو انتهي وصوصارا بقول كيبا انتهي مركز ربي وحكوله سبحانه وتعالى من كل 1999 كم كيبا واحد صوص كصوص بحساب سقال بقول سقاشن صوصار بالأرني ومالك سيد النبي صلى الله عليه وسلم مالك أي بل يربع الرئيسانيس ومدي أورك لهي علمه صوصوريس oo tin nuujinaysay ilmaheedii ahelmaamaysa oo dadkii aad arkaysa ayaga oo moodaysa inay sarqaansan yihiin ma sarqaansane cadaabka ilaahay baa weyn khamra mayna cabin darooga mayna isticmaalin ma sarqaansana laakiin wax hortooda ka muuqday la waalayn oo la wareersan maalinka marka yani Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray kunkiiba hal ruux inuu iimaanka siiyo سجال بقول يسجاشن إن إيمانك لقى قديو عذاب إلهي وصلك الله سبحانه وتعالى شيء مرك ولا لي القيمة لوامدك الروح إلهي السيينة أي لازم تأينه قرصه أو قلبي جاء أي كويناته حدينا تاسد عنك أو أين إيمانك إسلام ماذا إلهي إن السيي إنت الجور يكتني خلقي أنا أكتدي
qiimaha ay leedahay haddaad garan weydaan ilaahay subxaana wa tacala waa idinka qaadanaya. wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum baa la yidhi subxana wa tacala. haddaad jeedsataan ood khayr iyo wanaagka nacdaan ood ka jeedsataan kuwa idinka fiican bu ilahay idinku bedelanaya. kuwa markuu idinku bedeshana idinkoo kale noqon maayaan. yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa ya'ti allahu biqawmin yuxibuhum wayuxibuunah. ruuxii diinta ilaahay nace oo ka tagow oy qiima la yeelan weydow waxaad ogaataa waxba lagugu fali maayo. alla wuxuu keensani kuwa jecel isaguna uu jecel yahay, diintiisa fuliyo u shaqeeya, raalli ku ah oo ku qanacsan, oo allah subxaana wa tacaala miyuu kuu baahan yahay mise adaa u baahan? ma adaa u baahan allah subxana wa tacala mise wuu kuu baahan yahay? diinta ilaahay ma adaa u baahan mise waxa way iyadaa kuu baahan? allah khalqigiisa uma baahna subxaana wa tacala, waxbana inagu fali maayo. yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniy alxamiid. war idinka allah u baahan ee alla waa idinka maarmaa subxaana wa tacala. xadiidka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka nabigeenna odhanayo kulligiin haddaad isu tagtaan oo dhammaantiin aad yeelataan ka idin kulliisa qalbigiisoo kale wada yeelataan, mulkigayga iyo boqortooyadayda waxba yeeli maysaan. ka idinku fiican haddaad qalbigiisoo kale wada yeelataan ood wada ficnaataanna mulkigayga waxba ku kordhin maysaan, idinka iyo shaqadiinna iyo camalkiinna. allah waxba uma dhimi karno, samadani waxba uma dhimi karno, dhulkani wax inoo noqon maayo, qoraxdu wax inoo noqon mayso, maamulkan ilaahay waxba kama bedeli karno. laakiin adigaa waxaa tahay miskiinka sabarta daran, caqliga aan lahayn, garashadiisu kooban tahay, aragtidiisu kooban tahay, sabartiisu kooban tahay, ee allah u baahan subxaana wa tacaala. allah innagaa marka u baahan walaalayaal sharcigiisa. haddaan isaga aynan qabsaninna shaki ma laha inayna adduunna khasaarayno, aakharana inaynu meel xun ku soconno. oo labadii nololoodba inaynu hallaabayno shaki ma laha. walaalayaal marka mabda'an qiimaha badana ilahay inoo soo dejiyey subxaana wa tacaala waa mabda' aan waxba ka tegin, waa mabda' wax walba inoo kala dhigdhigay, waa dastuur ilaahay ka soo degay oo bini aadam uusan feegaarkii ahayn, wax bini aadam ku feegaaray oo uu macnaha waxa weye sameeyey ma. laakiin waxaa soo dejiyey allihii subxaana wa tacaala samaawaadkiiyo dhulka abuuray. wuxuu kuu sameeyey qoyskaaga iyo nidaamkii aad ku dhisi lahayd iyo qaabkaad u maamuli lahayd. nidaam buu ilahay kuu dejiyey subxana wa tacala, meel la aadan ka helin. bulshada aad ku dhex nooshahay, xidhiirka idinka dhaxaynaya, xuquuqda idinka dhaxaysa, nidaamkaad ku socon lahaydeen allah baa soo dejiyey subxaana wa tacaala, meel kale ka heli maysa. wax la mida iyadoo kale inaad meel kale ka hesharse lagama qabo. dawladdii iyo nidaamkeedii iyo dastuurkeedii iyo maxkamadaheedii iyo calaaqaadkeedii dibadda iyo kulli yani waxa weeye nidaam dhammaystiran oo isagoo kale aydan meel kale ka helin buu ilaahay soo dejiyey subxana wa tacala. uma baahana inaynu macnaha inagu maskaxdeenna ka shaqaysiino, inaynu dejinno uma baahana. keliya wuxuu u baahanya waa bisil yahay qaata oo cuna, waa diyaare qaata oo ku dhaqma. wax badan inoogama baahna, laakiin waxay arrintu ka go'daa inaad ku qanacsantood rumaysan tahay, diyaarna u tahay inaad ku dhaqanto. waxa mashaakil ina haysto dhan insha allahu tacala waa xalismay. qoysku marka walaalayaal mabda'aas asaasiga ah in soo sheegnay ee ilaahay inoo soo dejiyey, mabda'a isaga ah in lagu saleeyo ayaa asaaskiisa. halkaas ayay qodobka koobaad wax ka bilaabanayaan saayida. lianna waxa weeye qoysku arrin la dhayalsan kara ma aha, waa asaas, noloshu asaas badan iyo asaas weyn. inuu asaas yahay waxaad ku garan kartaa guriga marka la dhisayo waxaa jira dhagax la yidhahdaa dhagaxa asaaska oo gurigu ka bilowda. bulkeetiga ugu horeeya guriga la dhigo ee ku taagan yahay dhagaxa asaasiga ah bulshada waxaa u ah qoyska. inay arrintu saas tahayna waxaad ku garan kartaa allah subxaana wa tacaala markuu aadam abuuray, nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu allah abuuray oo carrada iyo dhulka ka abuuray, tilaabadii xigtay waxay ahayd wehelkiisii nolosha kala qayb qaadan lahayd inuu ilaahay u abuuray subxana wa tacaala. qoftii dumarka ahayd ee nolosha la wadaagi lahayd baa isaga laga abuuray laftiisa. xawaa
سيد ربي سبحانه وتعالى قرآن كشيء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء. الله اسكتشر بالله سبحانه وتعالى عذاب كيس اسكتشر كبقى الله سوى مثل إذن أبو ريو الناس كليا إذن